insha allahu tacaala. waaye waxaan gelaynaa marka qodobka shanaad oo ah tubweyne. tubweyne waa la garanayaa, waa doqon, waa mid gabdhaha iska garaaca, waa midka u qaata ninnimadu inay tahay gabdhaha in la dilo, mas-uuliyaddu inay tahay gabdhaha in la cadaabo, yaa raganimada u qaata in uu mar walba gabadha ka oohiyo. war waktigii gabdhaha la dili jiray waa laga soo gudbi, waktigii usha iyo maxaanku yidhaha kasha iyo udubka iyo kabaal gabdhaha lala dhici jiray waa laga soo gudbi. magaalaa la joogaa, adduun waxaa qarnigii 11aad baa la joogaa. xabsi kuguma jirta gabadhaan inaad dishana qof adiga aad dooratay oo aad jeclaatay ood gabdhaha kala soo baxday oo naftaadii aad ku aamintay, yaa inaad garaacdoo disho macnaha ka dhalanaya muxuu yahay? maxaa ka faa'iidaysa? marka tubweyne waa ninka u arka in gabdhaha la tumo ama la garaaco. war waxaas waa laga soo gudbaye ku wada hadal iyo isfaham iyo jacayl baa hadda jiree intaa ku bedel. haddaad ku soo kortay nolol garaacida ama qoys isdili jira haddaad ku soo kortay waa dhammaatay waqtigoodii. gabdhaha maanta joogaa garaac uma baahna, waxbay barteen, waxbay fahamsan yihiin, magaalooyin bay joogaan. qof u baahan in la dilo ma jiro. adiga shirkaaga in la garaaco ma baahnid, iyadana ha garaacay. marka ciladaha tubweyne oo gabadhu ka hadashay Saare Xuseen waxay ka mid tahay ciladaha ragga laga digtoonaado. waaye kan lixaad waxa weeye waa tala maqaate. ragga waxaa ku jira qof taladiisiina asaga aysan anfacayn, tii ehelka ama dadka asaga la dhashana aan qaadanayn. maxaad u malaynaysaa marka qof asaga taladiisuna aysan anfacayn oo wax wanaagsanba aan samaynayn? wixii wanaagsanaa ee dadka asaga jifada u ah ama budigaha u ah ay ku sixi lahaayeenna aan qaadanayn, waa khasaaro. soomaalida waxay tiraahdaa war ama tala keen ahow ama tala raac ahow, wax u dhexeeyaa ma jiraan. ama inaa adigu aad tahay qofka taladii keenayo, dee talada waxaa la yidhi iyada adaa ku nool, iyada kuguma noola. si kale waa loo mamaahay, waxaa la yidhaahdaa wax kalaa laga talaa laga dhintaa, shay kalaa laga dawoobaa. war qofka hadduu caqli xun yahay, war hadduu camal xun yahay, war hadduu maxaan ku yidhaha si kasta bakhayl hadduu yahay, hadduusan tala raacna ahayn tala keenna ahayn, noloshiisa wax macnaa ma leh. qofku waa inuu labadaa mid noqdaa, qof asagu taladii heleeli kara oo taladii fahmi kara oo asaga meeshii u wanaagsan fahmi kara oo wixiisa asagu hagaagsan kara, ama qof wixii loo hagaajiyo loo tuso waddadii la tuso raaci kara inuu yahay. hadduusan waddadii raaci karin la tusay asagana waxba la imaan karin, de waa alwaax meel taagan wey, waa garmagale kamana baxda wey. waxna ma galaan waxna kama soo baxaan fiican, keliya waa iska wuxuu asagu aaminsan yahay oo khaldan baa iska taagan. marka talamaqaate dadku waxay yidhaahdaan waa noocyada ugu xun dadka, sababtoo ah waxay taabanaysaa qofka damiirkiisa iyo garashiisa taabanaysaa, waa xagga garaadka taabanaysaa. talamaqaate iyo talamayaale macnaha tiisana ma meel mariso, tan dadka way ku sixi lahaayeenna ma qaato. marka ha laga digtoonaado inaad noqoto talama keene iyo talamaqaate inaad noqoto oo aad noqoto niman waxna gelin waxna ka bixinin. anigoo rajeynaya insha allahu tacaala casharkeena dambe inaan ku kulmi doono. waa Cismaan Sheekh qoys bile oo idin leh kulanti wanaagsan, kulanti dambe oo xiiso leh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.